tirada dadka ku dhintay fatahaadaha dalka ayaa gaartay 210 qof sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa sidoo kale fatahaadaha dalka ku dhaawacmay dad gaaraya 125 qof. tirada dadka la leeyahay ilaa iyo hadda ayaa maraysa 90 qofood. 33100 qoys ayaa ku barakacay gudaha dalka, taasoo ay saameysay ku dhawaad 165500 oo qofood. أو يران 115 xarumood ayaa laga sameeyay 19 degmo. Xiriyo waxay martigelinayaan in ka badan 27586 qofood. Tirada guud ee dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ayaa ah 196296. Gudaha magaalada Gaarisa waxaa ku barakacay 4661 qoys, kuwaasoo ku kala jira ilaa 10 xarumood. xirnaanshaha wadada isku xirta Modogo iyo Gaarisa awgeed ayaa dadku waxay bilaabeen inay isticmaalaan doomaha masaafaha yar oo marka hore dadka laga qaadi jiray lacag dhan 1500 kadib musiibadii Konabundo ay doontu ku qalimitay kuwaasoo ay ku dhinteen 7 ruux. Dawladdu ayaa qaaday tilaabo ay ku keentay 7 doomood taasoo hadda lagu raaco 200 shilin. Webiga Tana River ayaa qarqarka jabsaday kadib roobkii lixaadka lahaa ee qaybo kamid ah dalka ka daay, kuwaasoo sababay in deegaano badan ay saameyn ku yeeshaan. Wadada isku xirto Gaarisa iyo Nairobi ayaa waxay go'day 26 bishii Abriil daadad xoogan oo ku soo rogmaday magaalada Modogo ismaamulka Tana River, taasoo keentay in ganacsiga doomaha ay si xawli ah u socdaan.